بسم الله بسم الله maanta waxaan haddana soo booqanay family kamida agoomada ugu duruufta adag halkan haddaan soo booqanay tuuladan agoontaas oo aabahood hadda dhow ka dhintay reerkan laba mucjiso ayaa hal mar ku wada dhacday midda koobaad xaajigii oo 20 bari ka hor ka geeriyooday ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu oofsaday ilmaha yar inta laga aabahood ka dhintay markii odayga uu dhintay oo sii mootan yahay muddo aan bil gaaraynin ayaa haddana carruurta mid kamid ah isla maaragtay isbuucii ku xigay haddana ay dhimatay xaqiiqatan hooyadan labada murug ba hal mar isku darsamay dareemi karta hooyo odayga ka dhintay haddana carruurta mid kamid ah oo ilmaha u rooneed ku roon ku jirtay ay haddana laba isbuuc gudahood haddana ay ka raacday waa geeri aad u adag xaqiiqatan geerida naxdinteeda anay laba maalin anay 20 bari ka hor soo martay aad bay u xanuun badan tahay aad bay runaantii qofka qalbigiisa dadka qaar baaba isku dardarsamo oo runaantii xanuunsada marka waa geerin aad u naxdin badan ilmaha agoonta ah aad arkaysaan ma haystaan cid caawisa iyo xaqiiqatan maaragtay waa u jira xataa meeshii ku jiraan waad u jeedaan iyo halka ay ku nool yihiin gudaha ilaa gudahan gali doona waa arki doona bal gogashooda iyo meeshay ku seexdaan waxaan codsanayaa qof walba oo naxariista haddaadan caawin karin xataa oo waxba ku tari kareenin u gudbi walaalaha kale oo caawinaya xaqiiqatan kuwa ilaahay lagu dhawaan lahaa qof kasta oo dhib haysto waa kuwii ilaahay subxaanahu wa ta'aala oo kugu caawin lahaa maxaa yeelay agoonta isagoo diinteenu ay boorisay oo nebi maxamed sallallahu alayhi wasallam agoonka iyo fadligiisa uu ka sheekeeyay xataa gacantu saa loo saaro markuu ninkii saxaabiga nebiga weydiiyay oo nebiga Allah qalbiga adkaaday muxuu nebigu ku yiri agoon يعني مدح الصلاح أو نحريس أموجي قلبه وجلع دونا وحسر إلهي سبحانه وتعالى كون نحريسنا أو ماركتي كوجر جرايا وفيري وأمان والنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأمانه ومدح كلي الله صلاحه كورنا أديك عاوية ومرأة قضي كبا قضي جودر وكسر حدا قضي كفر حية إلهي سبحانه وتعالى انتين لك بكافر حنا مركب حنا عطسنا نقف كست أو نحريسته أو أنت عيرته أبوهود هذا كدنتي sii mootay qabrigii oo maartay sii qoyan yahay haddana walaashood oo caawin lahayd ba haddana ay hal mar yadana ka daba dhimatay inaad caawisid oo naxariiso si sifo ilaahay subxaanahu wa ta'aala oo kugu naxariisto oo kuwa mudan in la caawiyo duruufo adag bay ku jiraan abaaro ay hareerahooda ku hareeraysan oo run ahaantii aad u dhibaysa lama qiyaasi karo abaaraha halkan ay ku jiraan meel yaani laga sheekeyn karo ma aha yaani waxa idinka muuqataa wajiyadooda iyo guriga ay degan yihiin ayaa duruufta haysata idinka muuqata intaad fiirsato ha isku dayin inaad saa ku sii dhaafto markay ugu yar tahay sii gudbi oo sii shargare walaalaha kale rabbi ha ku naxariisto waxaan ilaahay uga baryaynaa subxaanahu wa ta'aala qof kaste oo u naxariista in ilaahay u naxariisto qof kaste oo caawiyana inuu ilaahay caawiyo gabadhayaan hadda u dhiibi doonaa sifo qof kaste u caawiso way xishoonaysaa oo yaani ma dhihi karo qof hadda laga dhintay qalbigeedu murgayo ma dhihi karo hadal laakiin waxaan isku dayayaa bal inay u duceyso qof kasta oo caawiyo insha Allah ta'ala hawla qabso insha Allah gabadha emotional noqotay way hadli kar weeday ka leexo way hadli kar weeday gabadhu waa saa idin sheegay emotional noqotay يعني قلبي قد سين وايي أو آد بأمرك سنتهاي إن هذا الشيء قف مرحلة دا كسوغن حقيقة وأذكتها إلهي سبحانه وتعالى هيدا عاوي وأذكتها ظروفا ليش كان كرينين عاوي الله كو عاوي الأمر كذا وكشاشة دا كقرن مقع صدحن وكا قف كستو الشهر قريء قروب ذا قلي إن شاء الله تعالى ربي هيدا عاوي وأقوانت هذا ركتان وقبر وجيدان مركا إلهي سبحانه وتعالى هيدا شرفه هذا سيتاي في عنتاي مقعة الله يهدي الشرف هذا بل وحنا فيرين غرغودا iyo bal meesha seexdaan iyo halkay ku nool yihiin waa gali karnaa Soomaa ilmaha goonta waa u jeedaan waa artaan gurigooda sida uu yahay iyo marxaladda uu ku sugan yahay waad u jeedaan aabahood nin wuxuu ahaa khayr badan oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha sharfo ilaahay ha karaamay nin wuxuu ahaa ahlul khayr ah وجد كتاب القرآن كابا يالله ما شاء الله المهم مركب ميغيال كو سخدان
baalkan ku seexdo halkan aad u jeedaan shan caruura iyo hooyadood baa seexata aabbahoodna ka maqan yahay adoo guri qurux badan ku jiro daar qurux badan ku jiro sariir qurux badan ku jeefto adiga i fiirsanaya maalinta ay geeri ku qabato waxay ku hilmaansiinaysaa wax kasta aad ku sugan tahay laakiin ka waran ilmaha aabbahood iyagoo duruuftaa ku jiro oo halkaa ku jiro oo marxaladdaa ku sugan oo halkaad u jeedaan oo ishiina ay macallin idin tahay ku sugan ka waran haddana ay geeri halkaa kula qabato waa meeqa naxdin waata kaga sii darana haddana ilmaha mid ka mid a haddana ay ka daba dhimato run ahaantii waa marxalad aad u adag qalbigaygana aniga ruxday oo gubtay oo run ahaantii aan la tebin karaynin caawi waa agoon ilaahay baa ku caawin hooyooyinka ilmuhu ku xidhan yihiin aabbayaasha ilmahooda karila cid walba ka waalidkii dhintay qof walba u niyeyso maxaa yeelay nebiga sal ll ly slam wuxuu yidhi kiina dhintay sadaqada ku daaweeya kuwa la kari waayey sadaqada u bixiya waa kuwan kuwii ku bixi lahayd kuwan waay caawi allaha ku caawiya asalaamu calaykum